muslimiinta dalka Norway ku nool waa 260 kun waxa hogaamiyo oo madax u ah nin Soomaali oo lagu magacaabo Cabdiraxmaan Cabdikariin Diiriye waxayna dadkaasi islaamka ee dalka Norway ku nool ay dhibtay iyo cabsida cudurka coronavirus la qabaan in ka badan 5 milyan oo Norwegian ah. Gudoomiyaha dalada islaamka ee dalka Norway Cabdiraxmaan Cabdikariin ayaa sheegay in dawladdu ay xiriir toos ah la soo sameysay in laga caawiyo xiritaanka xarumaha diimaha uu ka mid yahay masjidka Tawfiiq. waa arrin culus bay ahayd dawladdu markiiba wasaaradda arrimaha qaabilsan arrimaha diinta ayaa nala soo xiriirtay wada hadalna uu noo socday maadaama xaaladda la dareemayo Norway inay ku soo badanayso bilowgii bishii Maarso sidaas darteed anagoo wada hadal iyo xiriir noo socda baa hal mar waxa la yiraahdaa arrimahaas waa in tilaabo degdeg laga qaadaa markasta wayna la tashanayeen markasta wayna wareysanayeen markasta waxay dhahayeen waxa qumman aan ku dhaqaaqnaa aadna waxay isaga ilaalinayeen inay tilaabo awooda adeegsadaan ayagoo adeegsan kara oo waxay rabeen in markasta wada hadal iyo isfahan lagu dhameeyo arrinkaasna aad buu muhiim ugu yahay oo dhanka dalada ay markiiba soo aadayaan si ay u helaan talada noocaas ah iyo gaar ahaan si ay u helaan inay u imaan karaan masaajidda iyo goobahaas oo dhan oo ka heli karaan maqalka iyo qadarinta ay mudan tahay arintay soo jeedinayaan anaguna maadaama dad muslimiin nahay qadiyadaas dabcan markii aan dhanka caafimaadka iyo dhanka diinta laga fiirshay arrin muhiimadeeda la ay waxa xusuus mudan ama xusid mudan aan dhahay masaajidadu markii la qiimeeyay dhanka cudurka faafintiisa waxay qayb weyn ka yihiin meelaha ay khatarta badan ka imaan karto koow dadka yimaado waxa ugu badan dadka waaweyn ahaan waana dadka ay khatar ugu jiraan oo cudurkan uu halis u yahay labo isku dhawaanshihii oo sufuuftii lama kala fogeyn karo dadku isku dhow yihiin saddex waxa masaajidada inta badan yaala roog ama karbad kaasoo asaguna keenaya in dad fara badan meel ay taabtaan isla markaasna dhanka weesada waxay keenaysaa iyadana meel dadka ay isla isticmaalayaan arrimahaas oo dhan marka caafimaadka dhankiisa laga fiirsho khatar bay ku yihiin runtii qadiyadan cudurkan hadda caabuqa COVID-19 taas waxay keentay in dadka muslimiinta ay si gaar taxadir gaar u muujiyaan iyadoo la ilaalinayo oo markasta qadarinta la siinayo nafta bini'aadamka. Dawladda Norway ayaa sheegtay in dhawaan dib loo furayo xarumaha xanaanada carruurta iyo qaar ka mid ah iskuulada. Cabdiraxmaan Diiriye gudoomiyaha ururka islaamka ee dalka Norway ayaa sheegay in aan la xaqiijin karin lana ogaan karin xilliga dib loo furayo masjidka Tawfiiq iyo maraakiista kale ee dalka Norway. Ilaahay baa og runtii xilliga laga baxayo oo dawladuna ma og anaguna ma ogin Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu noo fududeeyo oo aan waqti dhaqso ka baxno kolba ilaa hadda amarkii ugu dambeeyo dawladdu wuxuu ahaa inaan la isugu imaan karin isku imaadka noocaas ah oo ku masaajidada ilaa 15 bisha lixaad oo hadda waxaan u maleynayaa waa 2 bilood dhow baa ka haray taqriiban kadibna kolba wixii ka dambeyn doona ma ogin inta ka hor waxa kaliya loo ogolyahay waxa weeye lambarka dadka oo ah aan 5 ama 4 qof ka badnayn inay isugu imaan karaan goobaha cibaadada masaajidada intaas waxa ay dheer gaar ahaan dadka muslimiinta ee Norway iyo Soomaalida waxaan si gaar ah runtii ugu tahaniyanayaa Ramadaan oo soo dhow oo hadda inaga xigto muddo ka yar isbuuc ilaahay idankiisa ilaahayna waafajiyo hana naga wada aqbal acmaasheedna gaar ahaan dadka guud ahaan dadka muslimiinta iyo Soomaalida si gaar ayagana waxaan rajaynayaa ilaahay idankiisa ilaahayna na waafajiyo khayrkeedana soo xijiyo wixii maxaa la yiraahdaa dhibaatana dhexdeena ilaahay u ka saaro. Xasan Saciid Rasta raadiyaha iyo TV-ga qaranka Soomaaliyeed Oslo Norway.